صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين. ما أنت وحن قادنا 10 أسبوع كصابسا أسبوع جدا بالبيريتك soil salinity of agriculture. ومحي عصبة سيدة عادية عصبة وحلو يقنا صوديوم كلورايد، لكن عصبة النمذا بالبيريتك وحسب نقول كريا نوعية كالدون أو أيونا أو أي كمديهين أيون كصوديوم كالسيوم بوتاسيوم مغنيسيوم نيتريت سلفيت بيكربونات إيو كربونات. ومحي عصبة النمذا بالبيريتك وعصبة أو كبضة طهريرها حديدة جيتك إلى إيجارته حد أي سامين حنكو يالته جيتك إيو مرحبا. عصبة بالبيريتك وحا سامين تا أغبضا كله عصبوينك أي كمديهين صوديوم كلورايد إيو صوديوم كربونات. على مدها عصبة النمذا عرضة مركب عصبة كبضا تهي waxaa jirta calaamad ku aqoonsan karayso koow waxaa kamid ah carrada oo soo bararta marka ay qallasho. labo meelo bannaan oo aan dhir lahayn meesha deegaanka asaga waxaad ku arkaysaa meelo bannaan oo dhirtu ka maqan tahay sida hadda sawirkaaga muuqata. saddex carro guur ayaa ku dhaca dhulka. carro guurku wuxuu ka dhashaa cusbada sababtoo ah dhirta ayaa ka dhammaanaysa meesha iyada ah waad arkaysaa dhulka sida uu u duldilaacay. afar cusbada oo ka muuqata carrada dusheeda mararka qaarkood cusbadii baa si caadi ah aad ugu arkaysa iyadoo ciidda dusheeda ku samaysay waxaad moodo qaanjeer. caleemaha oo jaalan noqda, koriimada oo yaraata, caleemaha oo dhara ama dhinta waa calaamad qaar ka mid ah calaamadaha lagu garto in meeshaas cusbadu ku badan tahay. waxayna muujinaysaa inayna dhirtu u adkaysan karaynin cusbada ku milan biyaha. waxyeelada cusbada dhulbeereedka ay u geysato yani waa maxay waxyeelada ay cusbada badan u geysan karto geedka. waxay geedka ka hor istaagaysaa nuugidda curiyaasha nafaqada ah ee ciidda ku jira qaarkood yani some fertilizers ama bacrimiyaasha qaarkood ee ciidda ku jira geedku ma awoodi karo inuu soo nuugo. sidaa daraadeed geedka waxaa ka muuqanaysa calaamadaha in curiyahaasi ka dhiman yahay ayadoon sidaasi aysan sax ahayn ugu wacan tahay cusbada oo ka hor istaagtay inuu geedku si sax u soo nuugo. haddii geedku nuugo cusbo aad u badan waxaa ku sumooba unugyada geedka sumoomaya marka geedka xaaladiisu caadi noqon mayso ilaa marka dambe uu dhinto. cusbada badani waxay yaraysaa nuugidda biyaha ee dhirta taasoo keenta inuu geedku qalalo. cusbada markay geedku ku badato geedku biyaha si caadi uma soo nuugi karayo cusbada ayaa ka hor istaagaysa. sidaa daraaddeed geedka oon ayaa ka muuqanaya isagoon oon qabin. ayoonada mas-uulka ka cusbanimada dhulbeereedka waxaa ka mid ah sodium potassium calcium magnesium iyo chloride. waxaa cusbada dhulbeereedka lagu cabiraa danab gudbinta milanbiyoodka. milanbiyood waxaanu la jeednaa ciidda ayaa waxaa lagu qasayaa biyaha ayaga ah ayaa la miirayaa kadibna biyahaas ayaa waxaa la cabirayaa danab gudbintooda. waxaa loo soo gaabiyaa EC oo macnaheedu yahay electrical conductivity. waxaa lagu cabiraa aalad gaar ah oo electronic ah waxaana ka mid ah aaladaha lagu cabiro aaladan sawirka kaaga muuqata. adkaysiga dhirta qaar ee cusbada qajaarka ama kukumbar wuxuu u adkaystaa cusbo u dhaxaysa 1200 ilaa 1750 ppm. yaanyada waxay u adkaysan kartaa inta u dhaxaysa 1400 ilaa 3500 oo ppm. baamiyaha wuxuu u adkaysan karayaa inta u dhaxaysa 1400 ilaa 1680 ppm. barbaroonigu wuxuu u adkaysan karaa inta u dhaxaysa 1260 ilaa 1540 ppm. geedka la yiraahdo baadinjaanka wuxuu u adkaysan karayaa inta u dhaxaysa 1700 ilaa 2450. kuwani waa table muujinaya geedka magaciisa oo Soomaali ah magaciisa oo Carabi ah asagoo English ah. sidoo kale wuxuu muujinayaa tirada cusbada ku milan oo lagu halbeegay pp ama ppm oo ah parts per million iyo sidoo kale pH-ka.
qaybtana waa qayb labaad oo dhirta ka mid ah geed walba waxaa meesha kaga muuqda magaciisa oo Soomaali ah asagoo Carabi ah asagoo English ah cusbada ugu yar iyo cusbada ugu badan uu adkeysan karo iyo lambarka pH-ka uu u dul qaadan karayo marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay waana ku mahadsantihiin dhageysigiina waxaan ka codsanayaa haddii aad wax ka faa'iiday haddaadan page-ka ka mid ahayn inaad tiraahdo subscribe isla markaana aad like tiraahdo aad baan idinku mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh